halkan waa bartaan YouTube-ka ku leenahay Bina Live News idil ahaantiiba ku soo dhawaada warka maanta waxa warkaas idin soo tobinaya aniga Cabdi iyo sharcigeena distoorkeena waa inoo sabta waxaan si rasmi ah u dhawaaqaynaa inuu bilaabmayo maalinta sabtida ninkii xabad soo qaadanaya iyo ninkii cirka soo duminayowba waa inoo sabtida in dadka ku tumanayay dadka tooganayay in la hayo taswiirahoodii biyada qaranka Soomaaliland ucud iyo wadani ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay waqtiga uu qabsoomayo mudaharaadkii ay qorsheeyeen waa kan gudoomiye Faysal Cali Xuseen oo arintaasi ka hadlaya badbaadada qaran dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo sharcigeena distoorkeena waa inoo sabta sabtidu waxa 8 gobol boo leeyahay 6 gobolba waa laga dhigay hadii la yiraahdo waa muujinina sideeda degme Hargeysana seenoo qorsheynay degmo kasta ay ka soo baxalkii lagu qorsheeyay sharaxaad shaqada madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa baaq dheer u diray dhammaan taageerayaasha labada xisbi mucaarid in aanay dhici karin cid hor istaagi kara mudaharaadka ay xaq u leeyihiin dastuurka qaranka Soomaaliland oo xaq u siiyay waa kan Cabdiraxmaan Cirro arrimahaasi ka hadlaya soo bixi nabadeed ee muddada sugayseen waxaan si rasmi ah u dhawaaqaynaa inuu bilaabmayo maalinta sabtida waxaanu ka dhacayaa goob kasta iyo gobol kasta iyo guri kasta iyo degmo kasta waanu ka xunnahay wixii maanta ka dhacay Hargeysa dad doonayay inaanu tacliimaad siino ku saabsan isu soo baxa nabadeed waanu doonaynay inaanu u warranno ayaa xukuumaddu u adeegsatay xabada nool iyo gaas maas iyo garaac iyo jirdil hablaa la dilay xildhibaanaa la dilay mas-uuliyiin xisbiyaa la dilay mas-uuliyiin xisbiyada ka tirsan baa oo intaasoo tiradoodu tahay baa la dhaawacay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani oo xabado noole ku dhaceen ayaa hadda dhakhtarka yaalla faahfaahinta dhammaanteed waxaa siin doona guddoomiyaha xisbiga dadka nabarrada gardarrada ku dhacay waxaa Ilaahay uga baryay inuu nabad gardarro uga dhigo inuu caafimaad siiyo laakiin waxaan u sheegayaa qof kastoo dhibaato u geysta muwaadiniinta Soomaaliland waa lala xisaabtami doonaa maalin baa cadaaladda la horkeeni doonaa ma dhuuman kartid shacbiguna ku saamixi maayo shacbiga Soomaaliland waxaanu doonaynaa mudaharaadkan ku dhawaaqaynaa waa mid silmi ah waa isu soo bax nabadeed oo dastuurku jideeyay oo xalaal geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa halkaasi ka xaadiriyay dadkii maanta ku dhawaaqmay mudaharaadkii iyo rasaastii ay ridayeen ciidamada bilayska Soomaaliland waa sida uu sheegay Xirsiye waa kan Xirsi Cali Xaaji Xasan oo liiskaasi akhrinaya waxa maanta dhaawacmay la taliyaha arrimaha saxaafadda musharax madaxweynaha Muniir Axmed Cigaal xabad nool baa lagu dhuftay xaqna looguma lahayn waxa la mid ah xildhibaan barka jaamac batuun oo isna dhaawac soo gaadhay waxa la mid ah Xuseen Aadan Cabdi oo dhaawac soo gaadhay waxa la mid ah waa laba xildhibaan labadaasuba xogaya ku xigeen aftax Saciid Jaambiir oo dhaawac soo gaadhay waxa la mid ah Caabi Maxamed Cabdi oo dhaawac soo gaadhay Cabdi Maxamed Cabdilaahi oo dhaawac soo gaadhay Maxamed Cali Cabdi iyo Marwa Xaliimo Xayd Xamse Maxamuud Ismaaciil Cabdiladiif Xuseen intaasuba dhaawac baa soo gaadhay waxa sidaa la mid ah Maxamed Dhamme iyo Cali Axmed oo iyaguna dhaawacyo fudud soo gaadheen waxa la mid ah xogaye Caawil Galayd oo isna dhaawac soo gaadhay gacanta xabad kaga dhacay isna xabadnoo lagu dhuftay dadka noocaasa
iyo inta aanu aqoonsanay ama na soo gaadhay intaa na soo gaadhay waa intaa wixii kale na soo gaadhana dib baanu warbixinteena ka soo sheegi doonaa waxaa la xidhxidhay number badan ayaa la xidhxidhay intaasa na soo gaadhay xildhibaan Salebaan Food xildhibaan leh immunity oo dhibaato geysan waa la xidhay wasiir hore Cabdilaahi Cukuse waa la xidhay xogay Maxamed Faarax xogay arrimaha gudaha waa la xidhay xogay Cawil Galayd isaga dhaawacaas soo gaadhay laakiin markii dambe waa la soo daayay Cabdiraxmaan Rooble Cabdisigis ninka la yiraahdo waa la xidhay waliba jirdil baa loo geystay dadka aan sheegayo badankooda Maxamed Cali Maxamed Bogi la yiraahdo isagana jirdil baa loo geystay waana la xidhay Yusuf Kaysi Cabdilaahi oo xisbiga u ah xogay warfaafinta jirdil waa loo geystay waana la xidhay